wabarakaatu dhammaan khiyaarta soo dhawaada waa mar kale barnaamij kale iyo Kista TV weli waa talaado 17 bisha June 2025 waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii aan ku eegaynay arrimaha ka socda bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Israel iyo Iran waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan barnaamijkan ku eegno shirkii degdegta ahaa ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka kaas oo 2 saac ka hor soo gabagaboobay madaxweyne Trump ayaa waxa uu shir degdeg ah la yeeshay golihiisa ammaanka oo ay ka wada hadleen arrinka iyo xaaladda hadda ay ku sugan tahay dagaalka u dhexeeya Iran iyo Israel madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay intii uusan shirka gelin in uu la hadlay prime ministerka ra'iisul wasaaraha waddanka Israel Benjamin Netanyahu kaas oo ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan dagaalka Netanyahu ayaa waxaa la sheegay inuu ka codsaday madaxweynaha dalka Mareykanka in ay ka caawiyaan suurtagalnimada in ay Mareykanka u keenaan diyaaradaha culculus iyo hubka culculus oo gaari kara oo hoos ugu dhaadhici kara meesha ay ku kaydsato Iran nuclear programkeeda waxaa la sheegay in diyaaradaha hadda Israel ay wadato iyo gantaalaha ay tuurayaan intaba aysan gudaha ugu dhaadhici karin heerkaasna looga baahan yahay in Mareykanka kaliya uu awooddaas hadeer leeyahay waxaa marka intaas markii ay isdhaafsadeen madaxweynaha oo aad moodo inay same page yihiin oo isku meel ay wax ka wadaan ayaa waxa uu qabtay shirkan degdegta ah shirkan ayaa waxaa la sheegayaa in arrinkaas si qoto dheer looga wada hadlay shirkana wuxuu socday saacad iyo bar waxaa la sheegayaa ama lasoo warinayaa in uu madaxweynaha markii shirka uu ka soo baxay wariyaasha ay su'aalo ku boobeen su'aalahaas ayaa waxaa ka mid ahaa maxaad ka soo wada hadasheen maxaad se Iran ma la hadashay waxa uu sheegay madaxweynaha in uu nimankaas deal uu ofargareeyay dealkaas uu u sheegay oo uu dhahay qaatana ay diideen laakiin wuxuu dhahay lama aan hadlin iyaga only Netanyahu ma la hadlay haddii ay rabaan inay ila hadlaanna way yaqaanaan meesha ay iga helayaan marka dealka iyaga qaadan waayu dhahay hadeerna xaalad aan ku wada hadalno maba joogtaba situationkaas hadeer kumaba jira ayuu yiri madaxweynaha sidoo waxaa madaxweynaha la weydiiyey su'aal ah haweeney iyada u qaabilsan arrimaha national intelligence-ga dalkan Mareykanka ayaa oo lagu magacaabo Tulsi Gabbard ayaa waxa ay sheegtay bishii March la soo dhaafay in Iran aysan raadinaynin in ay samaysato wax hub ah oo nuclear ah madaxweynaha mar la weydiiyey oo la xusuusiyey in mas'uul ka mid ah White House-ka uu arrinkan soo sheegay hadda ka hor waxa uu sheegay madaxweynaha wuxuu dhahay ma rabo inaan warkaas maqlo wax iga galayna ma laha waxaan aniga ogahay in Iran ay rabto in ay samaysato hubka nuclearka ah waxaana uu sheegay in ay intaas oo kale ay u jiraan in ay samaystaan waa exactly hadalkii uu ku hadlayay Benjamin Netanyahu daraad markii uu siinayay waraysiga Fox News waxa uu sheegay madaxweynaha in wararka dhahayo in Iran aysan hadeer ku tala jirin arrinkaas waxba aysan ka gelin hadaladiisa waxaa ka mid ahaa haddii ay isku dayaan buu yiri Iran in ay weeraraan ciidamadeena naga jooga bariga dhexe gaar ahaan wadamada oo ku weerarsan Iran ayuu wuxuu sheegay in haddii ay isku dayaan in ay weerar u geystaan buu yiri waxa aan bari doonaa ama aan u dhigi doonaa cashir aan horay loo arag waxaa la weydiiyey arrinka ku saabsan Ayatollah Khomeini maxaa ka damacsan tahay ayaa la yiri ninkaas wuxuu sheegay hadeer diyaar uma ahi buu yiri meesha uu joogo waan garanaynaa exactly waan garanaynaa buu yiri meesha uu ku sugan yahay Ayatollah Khomeini laakiin hadeer diyaar uma nihin in aan ninkaas aan qadka ka saarno oo hawada aan ka bixino madaxweynaha ayaa waxaad moodaa in uu u janjeero dhanka ah in Israel garab laga siiyo dagaalka ay kula jirto Iran waxaana aad markaad eegto body language-kiisa iyo hadalladiisa uu soo tuurayaba waxaad moodaa in uu ku raacsan yahay Benjamin Netanyahu in dagaalkan ay qayb ka galaan waxaa sidoo kale maanta ka baxay waddanka Ingiriiska diyaarado miigag ah oo uu leeyahay dalkan Mareykanka sawirro ayaa laga soo qaaday oo BBC-da ay hadda website-keeda ay ku jiraan waxaa kale oo weheliya
diyaaradahaas maadaama masaafo dheer ay galayaan diyaaradaha waaweyn oo gaaska u qaada oo hawada kore gaaska ku siiya ayaa iyagana u heliya marka arrinkaas ayaa jira wixii kasoo kordha waa arki doonaa in Mareykanka 48 saac soo socota dagaalkaas inuu ka qayb galo iyo in kale waa kala hubin doonaa insha Allah tacaala laakiin waxay u eg tahay in madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in uu nimankaasna garab siiyo curyaamiyana Iiraaniyiinta gantaaladooda kaliya ma aha in uu curyaamiyo sida ay sheegayaan nuclear programka ay leedahay wadanka Iran marka insha Allah tacaala wixii kasoo kordha waan idin soo update gareyn doonaa don't forget to subscribe to the channel like and share the video insha Allah wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh